شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مدحda kala duwan marti sharafta barnaamijka ka soo qayb gashay xogahayaha guud ee xisbiga mudane fiqi xogahayihii hore xisbiga xasan xaaji dhammaan marti sharafta kala duwan qaybaheeda kala duwan ka soo qayb gashay barnaamijka dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd salaam waxaan usoo istaagay inkastoo aan ka xumahay khudbadii marka hore in la isiiyey ay ahayd haddana waxaa meesha kasii maqan xaqi dumarka in la siijinaayo mar walibana dumarka la geynayo gadaal aadan u dhaliilayaa inta waa ka bilaawna isbeddelkaa leeyahay waxaan usoo istaagay halkaan dhiirigelin aan ku dhiirigelinayo dumarka inay hoggaan leader ay noqon karaan ana usoo qaadanayo daliilo fara badan daliilka koowaad aan usoo qaadanayo waxay tahay dumar inay hoggaan fiican yeelan karaan waxaa ka mid ah qisadii balqiisa usoo qaadanayo waxay tahay dumar inay hoggaan fiican yeelan karaan waxaa ka mid ah qisadii balqiisa ee qur-aanka lagu wada sheegay balqiisa waxay ahayd gabar oo maxaa la dhahay cariga saba waddanka yemen gabar hogaamiye ahayd waxay hogaaminaysa baarlamaan oo rag ah gabadhaas waxaa lagu xusuustaa aayadaha qur-aanka ay ku sheegaan fa'tuunii fii amri maa kunta qaadicatan amran xataa tashhaduun taasoo macnaheeda ay tahay baarlamaankeedii markay la hadlaysa waxay dhahday nimanyahow aa wada tashanno sidee wax yeelnaa iyada maysan dhihin talabood niman waxay dumarku ku tilmaamaan gabdhaha inay yihiin seefilbood ma aha seefilbood taasaa daliil u ah aayadda xigtaa sii sheegaya waxay tahay ragga waxay sii dhaheen qaaluu naxnu uuluu quwatin wa uuluu ba'si jadiid walamru ilayk fanduri maadaa ta'muruun taasoo macnaheeda ay tahay annaga awood leh annaga quwad leh nafar amarka adiga waxaad samaynaysid taasoo iidan waxay ku tusaysa ragga inay wax waliba ay ku jecel yihiin awood mar kastaba xoog ay wax ku raadiyaan aysan ahayn in xoog wax lagu raadiyo maasantahay hor allah kaa dhigo miisaanka allah ku saaro soomaalida ay dhahayso rag walaalo wax looga qaadi waayo xoog wax looguma qaado qisada aa usoo daliilanaya waxay tahay dumar inay hogaamiye fiican yihiin waxaa ka mid ah aasiya aa wada taqaaniin radiallahu canhu xaaskii fircoon waxay ahayd aasiya ninkeeda markuu sheegtay allanimo nebi inuu sheegtay ilaahnimo ee tiri mar waliba ee samayn jirta wax ninkeeda kasoo horjeedo uutim fircoon markuu ogaala naagtiisa inay ka daba shaqaynayso wuu dardara naagtiisa wuu dilay muxuu u dilay awood ku jirta darteeda u dilay fircoon cunuga ee u dhashayna isagana wuu gubay taas maxay ku tusaysaa gabdhaha inay awood leeyihiin xaqan ee mar waliba ay jecel yihiin inay ku doodaan xitaa hadduu ninkeeda baadil oo ku socdo waxaa la hadlayaa ragga oo mar waliba dumarka galaadiga sababtan waxaan leeyahay xaaskii ugu horeysay nabigeena sallallahu calayhi wasallam khadiija bint khuwaylid waxay ahayd qoftii ugu horeysay dumar ah oo rumaysa nabiga waxay ahayd qof mar waliba fangalan jirtay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam lacagteeda qoftaas nabigeena hore wuxuu yidhi gabdhaha ha lagu xisho afar waxyaalood walidiinaha walijimaaliha walmaalaha walxasayha gabadhaas haddaysa maaleysan maxay nabiga ku tabaruci lahayd waa maya maxaa u diidaysa marka dumarka inay shaqaystaan ragga waxaa kaloo iga soo qaadanayaa qiso kaloo cajiiba gabadh yahuudiyada jirtay waagii asxaabta inaysa dhagaysana aada oo jeclaan lahaa xilligii asxaabta waxaa jirta gabar yahuudiyada reerkoodii markay dhalatay reerkoodi waxay ugu magacdareen market merkuisa gabadha ugu magacdareen gabadha waxay ahayd markay 10 sano ay soo gaartay waxay dareentay 1954 waxay dareentay gabadhii in ay jirto diin islaama diintaas ay kaga habboon tahay waxay hadda ay ku socoto gabadhii waxay ku aan ku gaartay ciddeeda ka islaami weyne markay ahayd sanadka 1960 gabadhii waxay ku aan ku gaartay dumar lama xumeeyo xumaan laguma beere xisaab la'aan xurmeeyo xiska niyadda ha ka jibin waxa qaar sidii madi u xishmay sidii boqor xiska geli inay tahay xubin kaa mido adi laga beeray feertaada
haddii kale xakaar iyo xumaan iyo dhibaatiyo ula dhaqan sidii cadow